oo maxay ahayd dan laga lahaa oo mar suuqa la soo geliyay baa jirta oranaysa Faarax macallin baa yiri qofkii irinkaan qabo yaan loo ogolaan inuu dhoofo waad maqasheen Soomaa warkaasayta waa been allana kama dhaafo kuwa faafiyeen anigu markay noqoto dhoofitaanka markii hore beriga hore dadka yaryar iyo reer Baraawi iyo dadka maarta gibil cadkay waxaasayto kali la dhoofinayo ninkii ka dhaadhicay UN systemka inay fast come fast served si loo soo kala horeeyay loo dhoofo yaan aniga ha ilaahay ka soko insha Allah warwaadi maqashaan Soomaa qaxootiga tacliintii hoos bay u dhacday raashinkii hoos buu u dhacay caafimaadkii hoos buu u dhacay biyihii hoos buu u dhacay may maqashaan haddaad aamustaan si fiican baad ii maqleen aamusa qaxootiga waajibka saaran wuxuu saaran yahay qofka laga soo doortay meesha la yidhaahdo Dadaab maxaa shacabka deegaanka iyo qaxootigaba asaga ayay waajib ka saaran yihiin asaga ayuu u yihiin magan u yihiin asaga loo baahan inuu u doodo xuquuqdooda anigu xuquuq badan baan idinku dooday ilaahay baa marakee haddana waan doodayaa si fiican waan bilaabay hadda inaan dhaha nafaqada cuntada la siiyo waa in nooc kastana la siiyo waa in intii ahayd tirada markii horena laga bedelo ma la bilaabay bariis waa la bilaabay Soomaa waad ogsoontihiin bil horteed markaan dagaalka bilaabay Soomaa soo wixii ka dambeeyay maaha waxaad ogaanaysaan bil iyo bar laba bilood baad markii ugu dambeysay in la hadlay waxaad ogaanaysaan xuquuqdiinni waanu soo celinaynaa kulligeed tacliinta macallimiin baa ladin qorayaa ku filan oo carruurta wax baraan caafimaadka saddexda xarabo caafimaad badan baad ka helaysaan hay-adihii markii hore ka shaqaynaya way soo noqonayaan deeqda ay bixinayeen dadka dowladaha deeqbixiyaha ah way kordhin doonaan deeqda isbeddel fiican baa ka dhici doonaa maxariyaha qaxootiga waadna arki doontaan sida ugu degdegsiiya badan ayay taa ku dhici doontaan hadda ka hor waad maqasheen inuu nin yidhaahday war ma garanaysaan ninkii yidhaahday qaxootiga xoog ha lagu saaro ku ahaa ma garanaysaan ninkii yidhi qaxootiga xoog ha lagu saaro war waa kee Ruto Soomaa madaxweyne u taagay madaxweynaha u dooranaa looma dooranaya Raila Odinga baad u dooranaysaan madaxweyne maqlaysaan haddii aniga lay soo doortana Ruto baa sheegtay madaxweynaha waxba idinma qaadi karo insha Allah biidhnillaahi albaari xuquuqdiina inuu ku xadgudbo aabihiina kuma dhaca ninkuu doona ha noqdo haddaad laakiin nin nugul oo waxba ka hadli karin baarlamaanka dhexdiisa oo waxaan aqoon lahayn oon khibrad lahayn oon waayo arag ahayn meesha aad geysa maxaad haysataa yaa rafaadayaa shacabkaa rafaadayaa may maqlaysaan marka waxaad ogaanaysaan daryeelkiina wuu isbedeli doonaa dadka kaararka halkoo iyo qofkoo iyo labadoo maartay inay kaar haystaan loo xayirayna waa la furi doonaa ma maqlaysaan shaqaalaha wuu kordhi doonaa daryeelkana wuu kordhi doonaa xadka Soomaalina waanu furi doonaa custom baa la geen doonaa immigration Soomaaliya iyo Kenya way isku furman doontaa ma maqlaysaan war ma maqlaysaan insha Allah way isku furmi doonaan waxaan ku dadaalayaa in laydan siiyo warqada ID card oo kale oo meesha doontaan Kenya aad ku tagi kartaan socod siimidan garan movement pass kan yaryar oo lacagta laga qaadanay lacagta ma laga qaadan doono soomidan garan dadka deegaanka irin kaarka way helayaan lacagna lagama qaadan doono hadda waa lagu booba waa lagu dhaca waa meesha kali oo Kenya 10,000 oo shilin 8,000 oo shilin 5,000 oo shilin qof irin kaarka xaq u lahaa laga qaadanay Soomaa dadka deegaanka waxa weeyaan way heli doonaan lacagna lagama qaadan doono
ويسبدل دون تحالته مين مقشان ورمي مقشان ما مقشان تعليم تقحوتيغا ويسبدل دونا أرضي دينا تعليم في عم بيهلي دونان جامعة ودير دونا وانكو يو انك وانكو قصب دونا أرضي كستا أرضي كنا جها انت او جامعة كينيا كان قليل كرو ان جامعة كينيا اللي جاي كي دي بدل لوردو فينا دي بدل لوردو في ما مغليسان dhalinyarada ay to mustaqbalkooda waa in laga shaqeeyaa haddii mustaqbalkiina laga shaqeeynin waa idin dhamaatay sooma waa inaad doorataan madaxda sugi karaan mustaqbalkiina may fahamteen ku talagala midaayada insha Allah biidnillaahi albaari anigu tacliinta waad garanaysaa saan ahmiyadda u siinayay ka badan baan siin doonaa hadduu yahay qaxooti hadduu yahay maxay yahay degaan kulli waanu ku howlgeli doonaa أمانك ويسبدل دونا أمانك وحاك شقين دونان داد لوغو تلقلي أو عسكري أو عيداني أو صومالي وبدن وننكعب سنين داد كريتو أمانك عرقلديو وين صوت ترتير دونان ميلاها نيتو لبديد كي وروريقها نورد هيان ميدا كان داد كريتو شفتده أو برعده أو ميل كستبدوين كدير استاقيسو أو داد كفران هيان markaan soo gala aniga la bil ma gaari doonto hatta 2 bilood ma gaari doonto waanu tirtiri doonaa midasa soo dhiibay mid la soo dilay noqon doonaan qaadicu tariiq weeyaan qaadicu tariiq dilba asaga xaq uu ku leeyahay midasa soo dhiibo iyo mid la soo dilo madaxiisa la keenay noqon doonaan may maqashaan askartan idigu qaraaban haysa idinkoo maalin kasta intay idin qabtaan lacagta idinka qaadan doonaan laaluush mar damba ma dhici doonto qaxootigana kiiga raba inuu ka taga dhagax le ifo imaada suu doono uu tagi ifo ilaa xagar dheer suu doono uu tagi waxaan laydin kala xayiray laydinma kala xayiri doona meeshaad doontaad tagi karta adigoo qaxootiya suuqan ayto mar kasta la gubayo baabuur dabdamis baan u keenayaa anigaa kan lisi doonaa UN-ka UNHCR sankoodan aana kan lisi doonaa 4 taxaaniyaba 4 baabuur oo degdemise ayaa joogi doontaan war may maqashaan soomiidan maqal labada waa la sugayaa haddii la doono xataa waxaa lagu xidhi doonaa meel kastaba CCTV cameras oo ninka saqajaannimiya aynaba ku dhaqanhayo oo wax qarxinhayo oo wax gubihayo sifa loo ogaado asagana uu ogaado in jeel uu ku wari doono mise naftiisa ku waan doono waddanka waa inuu noqdaa waddan sharci leeyahay oo kala dambayn leh qaxootigana xaqooda la ilaalinayo aanan lagu xadgudbi karin askarina ku xadgudbi karin nin kaloo nabaddiidna uusan ku xadgudbi karin may maqlaysaan waxaan idiin sheegayaa gabdha odayaasha iyo hablaha maamooyinka 65 gaarayay wixii ka sarreeyo in la siin doono bil kastaba lacag loogu soo shibi doono telefoonkooda maamooyinka caruurta agoonta haystaan inay bil kasta lacag loogu soo diri doono telefoonkooda iyagana waan diiwaangelin doonaa meelaha kale oo Kenya waa laga haystaa barkoodna faa'iido haystaan halkan wax idin doodaa la waayay haddaan deegaanka tihiin midda ayada anaa ku doodayaa waana xaqiijinayaa waana sugayaa xaqiina sifaad u heshaan maalin kastaba war may maqashaan anigu waxaan idiin sheegi waad intaqaaneen hore soo maaha oday 60 jir markuu soo noqonay oranay hallay doorta mar kale ciddi buu ka waayay wax si fiican u dhaqo soo maaha yaa war caruurtii ciddii geeli lood haddii la dhaqi waayso inuu ku soo noqdo maaha waxaan arkay meeshii aan ku ogaa oo kor ooga sii socon leeday hoos uga dhacday meel alla meeshaan tago waxaan ceelkii aniga aan qoday bamkii aniga aan hagaajiyey injinkii aniga aan ku fariisiiyey oo dhammaaday baa yaallaa meeshii ma maqlaysaan anoon baarlamaan ku jirin baa hadda 10 ceel ku dhowaan qoday oo barkoodna aan hagaajiyey oo maanta dayactiray soo run maaha
لينك برلمانك كجرا وحال الربا حق ددك حقوقda iyo hantida dadweynaha loogu talagalay inuu badbaadiyo deeq kale u raadiyo jeebkiisa intuu ka soo qaado dadweynaha xoolihiisa ku isticmaalo madaxtinimo markaad doonayso waa inaad noqoto nin saqi oo shilin aanan rabin inuu asaga haysto iskuma heli kartid labada may maqlaysaan inaad waxna boobto jeebaha buuxsato madaxna laga dhigo iskuma heli kartid ما نقولنا مدة أيده محمد سياد برا مركو دمنا محولو كدنتي محولو كدنتي أنا أقول مرة بينان حقنا الوالدين بدباديريا حوالي أنا وان كنت ريا كوك فربنا أو داقو أدون كمال كساك كأننا وادين كيريا وهاي داق ذا كلي إسبدل كنولشي نايا داق ذا مغليسان marka midda horta ogaada meel ku qorta waan soo wareegay fiiri wax baan idin sheegi meel maroodil ayaan tagay jifada hoose oo ninka baarlamaan ku jira ayaa joogtay waxa laga soo qaaday meel 500 tilaabo u jirta meesha laga soo xumbaaray waa aragteen Soomaa haddii nin baahan wax looma dhiibo farmaajo maxaan ku jeclaaday aniga ma rabo lacag farmaajo ma garanta halkayga قرن بونيس الربا لعقت الله كان وحديه كحاجة قرنك سلا سفارة معلن وياها ما مغليسان مقع مسكوها هذيك الطيارة جاوش بحسته ما يصومه وحي كان كندري مشاركة كان كندري العقد مالك سيسوق شو دق بان هذيني وحن ربا ومضى أنا يسبد شيء أنت كلمة ربا مركان أنت قبرك وان قبل سفيع من ذاك لو حبان لي شيء دقيسته تجراد مركا إثيوبيا حمر قراعيسي أو صوماليدا مسلمين ولااليهن كلها إنيسي يا وينك كلي أو كان غير مالك استكال لي أو يصدق كيمبي أو كينيا جوكتا صوماليدا هاد متكسر ميسك هوستي سو قالي صوما فرح ولا دلي والله صوما نولي هذا صوما نولي هرت جالسي مرة أنت أنا دي شيء تيسو كدماني ما يقرأتين كينيا مركين أنا كنا لقوا حد كنا نككله وتقال ما يوها سوالي ما جوجي موي بايقو هري ماذي ويريدي وحكستي يقول سمي أصدقاء دنتي سوما دولتي كلا يانس قبرنا يجي باتكين هدنا وحابين روتوغي حمابان هدنا عيرسنا يا ودولتنا أنجلي دونا لينك لا صومالي قحوتي انت جواري لا صار هلو تور حدود كدنا كلا ابينا كما دعوه ارك دونتا فرح دو سوق البرلمان ورماي مقشان halko shay baa aniga idinka rabaa Soomaaliya isjeclaada isku duubnaada shawsha kale anaga noo daaya tacliintiini horumarkiini dhaqaalihiini noloshiini anaga sugeynaa in noo daaya haddaan soo galno anaga sugeynaa idinka midnimo ma adiga rabnaa may maqasheen wax badan baad arki doontaan isbedel hadda waqti hadda miyaa la joogaa gabadha intay garaan garisa ay gacmaha adkaanayaan sidii qof ka shaqaynaya guriga la dhisayo war ma loogu talagalay gabar Soomaali oo quruxdeeda qabtay inay wax say u riixaysa gacmaheeda iyo dadka guriga dhisay la mid noqdaan ma Soomaali inay tuuba gurigeeda horteeda ku haysto saabiya u furto وأركض أنت نداب ودان constituency وانكيد لندن مدايدة حقوق ذا ربطان ذكرى وقعدت عليها إن حق كستوان بيها وهذا ليسان صار ربطان بدوه ليسان عافمات صار ربطان بدوه ليسان تعليم صار ربطان بدوه ليسان نمكن نوفر ربا حتى العقد voluntary repatriation قربان وقادر ربا لما بقولوا $1 با شخصي يلا سيا وانو كبدين دونا سفوق انت halkii qoyska ah oo mesela noqday rabaan inay Soomaaliya dib ugu noqdaan nolol ka bilowdaan ilaa $5,000 la siin karo $10,000 la siin karo ay ka bilaabi karaan noloshooda xaq ma maqasheen waxay la tahay inay suurtagal noqonaynin fulayga ayaa moodaa waxa barkood inay suurtagal noqonaynin ana aan tusin doonaa insha Allah nafta Allah igu simo iyadoo suurtagal noqoto
وروادي فهمتين صوما وقت دنبال الجوغا ما أنتونا بعد سويسين أدبادو ما سنتين هدان واحد دافينا وان سو نقون دونا مر كلي لبا كلي سدح كلي افر كلا idin soo noqon doona hal koomid oo sameeya xaqiina in la idiga iibsadaan la isku dayi doona ma maqlaysaan aniga tigraadi meel zanaawi hadda koor waxay ugu dhan 10 milyan oo dollar baan ku siinayna naga aamus waxaan adna ka shifaysa Soomaaliya 10 milyan oo hadaad keentaan waxaan idin Soomaaliya ka baxa gobolka Soomaalida dhibka ka daaya ma maqlaysaan marka ma inuu heshiin karnaa baan idhi waraani Soomaali awa meeles awa gabre awa tuugti jannada hado xamar garaacis waa dhamaadeen kulli gobolkoodan uu baabaa dhowr boqol ku maana ka dhimatay xaqa hagaadhe baatilkana wuu zuuli xaqana wuu taagnaanaya saymidan maqal marka ani waxaan idin sheegayaa war cadow kasta hadda ka hor anoo baarlamaan ku jiraan la yidhi qaxootiga Nairobi inta laga soo aruuriya kasaraani ha lagu aruuriya miyay maqasheen markaan ka baxay baarlamaanka ayaa kasaraani lagu aruuriya qaxootiga Soomaaliya faara macallin markuu ka tagay baarlamaanka ku hubsadeen oo 2013 2014 wixii ka dambeeyay waa kii bariga Soomaalida la aruuriyo la xasuuqay wax kasta oo dhamay 2015 Soomaa intaan aniga ku jiray may u dhawaan kareen aabbahoodna kuma dhicin anaa idiin sheegi oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka haddana haddaan gala gudoomiye ku-xigeenka wax ka saro ma noqonaya insha Allah bidni Ilaahi al-baari war Soomaa igeeya meesha cadkiina adii soo gooya cadowna adiga celiye cadkiina adii soo gooya cadowna adiga tiiriya meesha igeeya ma igeeynaysaa موقوشين قعما كورتاي انت وقل بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم أدبادو ما سنتين